كتاب الله أحيانا وبالتوحيد أوصانا ففي قرآننا نور يضيء ظلام دنيانا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وعشر كيشن يتبناد برنامج كيني بربارنت أبدك وحاينو كغور رمي دونا قضب كأه الطفل من الولادة إلى الحولين. ilmuhu marka uu dhasho ilaa laga gaarayo marka labada sano ee u horeeya waxyaabaha marka waalidka looga baahan yahay inay sameeyaan ama ay marka raacaan. qodobka ugu horeeya ee soo hoosgelaya waxa weeye xilliga marka dhalmada ama maamadu marka hooyadu marka ay fooshu marka hayso ay qabato waxyaabaha looga baahan yahay. xilliga fooshu waa xilli markaa daal badan dhinaca jirka iyo dhinaca nafsadaba ay waalidku markaa ay dareemaan. sidoo kale waa xilli markaa uu koro culays badan labada waalidba. isagoo haddaba ilaahay subxaanahu wa tacaala xaaladda ka waramaya maryama iyo laxadaadka iyo markay xilligaa ku jirtay culayskii marka ay dareentay ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu leeyahay faxamalathu fantabadat bihi makaanan qasiya. yacni faxamalathu markaa way uurkii bay qaaday nabiyullaahi ciisa calayhi assalaam, fantabadat bihi makaanan qasiya, markaa way fogaatay oo meel fog bay la tagtay. faajaaha almakhaadu, markii ay markaa la gaadhay xilligii foosha ama xilligii dhalmada markii ay timi ilaa jidci nakhlati, geed markaa timireed jiridiisa ayay markaa cuskatay oo markaa ay qabsatay, yacni culayska iyo xaaladda markaa jirta awgeed. haddaba qofka dumarka ah ama hooyada markaa xilligaa uurka intaa soo siday ee maalintaa markaa xaaladda markay soo gaadho xaaladda waxaa loo baahan yahay laxadaadka iyo saacadaha inay markaa u jihaysato oo markaa ay wejigeeda ay markaa u jihayso xagga ilaahay subxaanahu wa tacaala, oo ay la timaado duco fara badan iyo markaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala ay u toobad keento, inay markaa si ikhlaasa oo markaa niyadana ay ula timaado. sidoo kale inay markaa samayso oo marka ay u degdegto wax kasta oo markaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ugu fududeyn karo culayskan inuu markaa ilaahay kaga kor qaado oo markaa ay ilaahay ugu fududeyn karo. sida markaa dayin dadkii markaa umulisooyinkii oo kale markaa cusbitaaladii oo kale meelahaas oo kale marka ay tagto. laakiin shayga ugu horeeya ee mar kastaba loo baahan yahay hooyadu inay mar kastaba ilaahay markaa xasuusato wey. innaga inta badan waxaa laga yaabaa markaba dee dumaradii iyo dadkii kale markaba loo wacdaa ama loo qayliyaa ama cusbitaalka si degdega marka. laakiin marka ugu horeysaba ilaahay maskaxdaada kusoo dhaco isagaa ilaahay 9 bilood uurka halkaa ku hayay, isagaa ilaahay halkaa maxay kusoo ilaaliyey, isagaa intaasoo heer waa maxay soo mariyey. ilaahayna subxaanahu wa tacaala ilaalinta iyo ricaayada uu insaanka ilaalinayo waa mid markaa joogto ah xilli kasta. ilaahay naxariistiisa iyo raxmadiisuna waa mid aan ka maqnayn oo aan ka fuqin laxdo iyo markaa ilbidhiqsi iyo minute iyo saacad kastaba ibni aadanka aan ka maqnayn. taysiirta iyo fududeynta ilaahay dadka arrimaha u fududeeyana iyaduna waa mid markaa joogto ah xilli kasta. sida ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka ku tilmaamayo oo uu leeyahay waa maxay min nudfatin khalaqahu faqadara ثم السبيل يسره. إلهي حليوه محي وحانو كأبنا نضفير دابدنا فقدره إلهي السجع مكا قدري. إلهي محو قدري قفك عمل كيسي قفك أرزاق ديسكي قفك مركا وقت قول إيمان لها وحرم من إلهي سوى قدري. ثم السبيل يسره. ابن عباس يحكمه وحي إليه ثم السبيل يسره. إلهي وحو مركا قفك أفضل دي ماشي مركا أصوم لها
iyo wadadii marka uu ka soo bixi lahaa ee hooyada subxaanahu ilaahay subxaanahu wa tacaala marka ilmaha uu ku abuuray. wadadaana waa maxay? ilaahay markaa waa u fududeynaya marka. thumma sabiila yasara. marka shay kasta iyo wax kasta waxa ay ku socdaan taysiirta iyo fududeynta ilaahay subxaanahu wa tacaala. marka ilaahay noo tilmaamaya thumma sabiila yasara. haddaba marka ilmihii uu banaanka yimaado, marxaladii iyo markaa noloshii jiniinka ama marxaladii uurka hooyadii uu ku jiray, noloshaasi markaa way soo dhammaatay. waxaa markaa bilaabmaysa marxaladii markaa dufuulnimada iyo marxaladii markaa uu ilmaha ahaanayay ee markaa koritaankii iyo noloshii kale markaa adduunyadu markaa ay u bilaabmaysay. sidoo kale waa maxay? waxaa halkaa ka bilaabmaysa xuquuqda uu ilmuhu markaa yeelanayo ama weliga iyo waalidka marka uu ku leeyahay. kuwaasina maanta waa maxay? 3 keliya ka tilmaami doonaa. kow waxaa ka mid a haddii markaa xilligii ramadaanta kusoo aadanto oo kaalin sakaatulfidrigii dee laga bixiyo oo laga dhiibo. waxyaabaha kale ee ilmuhu markaa hadduu dhasho uu xaq u leeyahay waa maxay? in markaa uu dee dhaxalkii isaguna uu ka qeyb galo. waa haddii markaa uu kusoo dhasho isagoo markaa dee dhammaystiran oo markaa nool oo waa maxay qaylinayo wax maqlaya marka. haddii kale waa maya. shayga markaa saddexaad ee markaa isaguna ilmuhu u baahan yahay ama waalidku ay u baahan yihiin in la sameeyo waxa weeye albishaaratu watahniyatu bilmawluudi aljadiid marka. yacni in farxadda iyo markaa waa maxay tahniyad lala qeybsado waalidka marka ilmahaasi u soo kordhay ee uu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyey. mujtamaca islaamkana yacni waxyaabaha isku xidhkooda adkeeya waxaa ka mid ah inay markaa isla qeybsadaan wixii farxad iyo markaa wanaaga yimaada. sidoo kale haddii murugo iyo dhibaato timaadana inay markaa isla qeybsadaan si markaa mujtamacaasi u noqdo markaa waa maxay? dhisme markaa adag oo is haysta markaa qaabkiisuna uu toos u adag yahay. ilmaha marka adduunka kusoo biiray ee adduunka yimina waa in isagana waa maxay? si fiican dee loo soo dhoweeyo oo waa maxay? laga qeyb qaato markaa tahniyadda iyo markaa bushaarada, iyadoo markaa lagaga dayanayo si qaabkii markaa dee malaa'igta rususha ilaahay xilliyadaas oo kale ay ugu bushaarayn jireen. nebiyullaahi zakariya markuu ilaahay markaa ubadka weydiisanayay ee uu lahaa ilaahay waxaan ku weydiisanaya ubad fiican oo wanaagsan, ilaahay waxa uu ku yidhi yaa zakariya innaa nubashiruka bigulaamin ismuhu yaxya lam najcal lahu min qablu samiya. yacni nebi zakariyow waxaan markaa kuugu bushaaraynaynaa markaa ilmaha magaciisa yaxya la yidhaahdo marka ayaan kuugu bushaaraynaynaa. marka farxadda iyo markaa tahniyadda in waalidka lala qeybsado oo markaa lagala qeyb qaato iyaduna waxa ay markaa ka qeyb qaadanaysaa oo waalidkii markaa ay farxad gelinaysaa qalbigooda marka. waana shay markaa ka dhigaya dadka mujtamaca islaamiga ee halkaa degani inay isku xidhnaadaan oo mar kastaba ay iska warhayaan marka. qeybta markaa ilmaha xilliga uu ku jiro 2 sano ee ugu horeeya ayaynu insha allahu tacaala halkaa waa maxay ayaynu kasii wadi doonaa insha allah ilaa casharka inoogu xiga. wallahu subxaanahu wa tacaala aclamu wa axkam wa ilayhi marjicu walma'aab.